xayawaankan waa dibi ka mid oo loo dibadeedka ku nool duurka codkiisuna waa sidan. kani waa nooc ka mida daanyeerada waxaana loo yaqaanaa baabuun. qaabka cidiisa ay isku afkartaan waa sidan. kani waa xayawaanka aynu u naqaano doofaar, cidiisuna waa sidan. buufaalo waa lo-gasida duurjoogta ah ee badanaa ku nool qaaradda Afrika, waana xayawaan quwad iyo xoog weyn oo ay ka taakiraan ugaadhsadayaashu. badina waa ay iskugu tagaan iyagoo kooxo ah si ay u cunaan. qaabka cidiisuna waa sidan. kani waa mid ka mida ugaadhsadaa ugu orodka dheereeya ee harimcadka. qaabka cidiisuna waa sidan. kani waa xayawaanka waraabe ee ay Soomaalidu magacyada faraha badan u yaqaanaan. haddaba codadkiisa faraha badan ee ka soo burqada ayaa waxaa ka mid ah. kani waa goriila, waa nooc ka mida qaybaha daanyeerada waxaana uu ka mid yahay xayawaanaadka farakaturiska ee ku sii nool qaaradda Afrika. qaabka cidiisuna waa sidan. kani waa xayawaanka ay Soomaalidu u taqaana gashiito oo alla siiyey waramo ku rakiban jirkiisa si aanay u soo hungurayn ugaadhsatadu. codadkiisana waxaa ka mid ah. kani waa xayawaanka garayga. bani aadamku umuu suuro gelin inuu maqlo codadka ay ku wada xidhiidhaan garaygu, laakiin waxay ku wada xidhiidhaan habab u gaar ah oo bani aadamku aanu awood u lahayn in uu maqlo. kani waa xayawaanka dameer farowga oo alla siiyey muuqaalkiisa aadka u quruxdasan. codadka ay ku wada xidhiidhaanna waxaa ka mid ah. kani waa xayawaanka yaxaaska, cidiisuna waa sidan. boqorka duurjoogta ee libaaxa oo cidiisa in badan oo Soomaalida miyigu ay ka argagaxaan ayaa marka uu soo dhaaranayo waxa uu ku soociyaa. lemur waa xayawaan kan yar waxaana la yiraahdaa waxa uu asal ahaan laga helaa oo uu ku nool yahay jasiiradda yar ee Madagascar ee ku taala koonfurta qaaradda Afrika. dhawaqa codkiisuna waa sidan.
kani waa qayb ka mida shabeellada ku nool qaaradda Afrika dhawaqacidiisuna waa sidan maarubu waa shimbirkan aad arkaysaan waxa uu badanaa uu ku nool yahay Afrikada koonfureed saxaraha iyo deegaanada qoyan ee webiyada qaabka dhawaqiisuna waa sidan kani waa xayawaanka wiisha waxaanay ka mid tahay qaniimada u sii hadhay qaaradda Afrika ciideeduna waa sidan shimbirkan waxaa lagu magacaabaa African Grey qaabka codkiisu waa sidan xayawaankan maroodiga cidiisuna isna waa sidan goronyada ayaa iyana leh dhawaq iyo cod u gaara oo ay isku afkartaan ciideeduna waa sidan xayawaankan ayaa waxa ay Soomaalidu u taqaanaa soongur waana xayawaan aad u ugaadhsada noocyada masaska kuwooda ugu khatarsan dhawaqacidiisuna waa sidan shimbirahan waa nooc ka mid ah xurbadeeda dhawaqa codadkooduna waa sidan xayawaankan dacwada ayaa iyana leh cod iyo dhawaqa ay isku gartaan waxaana ka mid ah chimpanzee iyana waa qayb ka mida goriilayaasha ku nool qaaradda Afrika cidooda lagu yaqaanana waa sidan ugu dambeyn xayawaankan jeerta ee ku nool webiyada qaaradda Afrika ayaa iyana leh u gaara oo ay isku afkartaan